tiyaatarka qaranka oo heer gabagaba marayo sidaas soo aragteen badismihii uu naga dhamaaday marka laga reebo wax yar oo alaab oo Spain oo xayiran maadaama diyaaradii la joojiyay ayadana waa ka maaranay xamar waxaan ka heli karnaa hadda isticmaalnay si ay hooshi noogu sii socoto maadaama loo baahan yahay in shaqo badan lagu qabto tiyaatarka qaranka waxaa la dhagax dhigay 23 Oktoobar 2018 wuxuu marayaa sanad iyo bilo badan oo labadii sano wax yar ka dhiman waxaa laga qabtay howl badan waxaa loo qabtay 4 system oo ah kii dhismaha guud ee tiyaatarka oo ah kii qalabeynta gudaha tiyaatarka oo ah kii xagga korontada iyo technicianka u baahnaa ee gudaha awal ku sameysnaa haday noqoto isha korontadii mareysay aqalada dhexdooda oo in la goobo ay howl badan noqoto maadaama ay injineerishiinaysa dhiseen waqti horena la dhisay si adagna loo dhisay alxamdulillah ilaahay uu nagu gooleeyay maanta waxay maraysaa heer gabagaba ah alxamdulillah aad soo aragteen daahiyadii oo laalaaday nalalkii oo shidan systemyadii oo wada shaqeynaayo intaas kadib tiyaatarka in isxilqaan hawshiisa waxay ahayd howl madaxweynaha baaq madaxweyne ayay ahayd iyo fulin ra'iisul wasaare aan waxa la magacaabay 12 bisha Oktoobar oo la yiraahdo hawshaas ka noqonaysa agaasime ilaahay uu nagu guuleeyay howlo kala badan oo socdana waa aragteen kuwa noo gabagaboobana waa aragteen shanti taalo ee nala saarayeen habeen barka waad aragteen ilaa gariiga aan ka keenay alxamdulillah intaas kadib tiyaatarka qaranka mar dhow la xarig jari doonaa waxaan mahad iyo hambalyo u celinaynaa dadkii Soomaaliyeed ee ka geystay inay nala dhisaan ay hawshaas nala galaan isxilqaanimo oo ugu horeeyaan ganacsatada Soomaaliyeed uma baahanin alaab haddaan u baahanana ma waayin ayadoo ganacsato nala joogto markaan dalbano waxa noo keeni jiray ilaa saakay 4 saac maktabada qalab u soo wado waa ganacsato Soomaaliyeed oo na dhiirigeliyo oo mar walba nacaawino oo wixii nagu dhagan naga furto waxaan leenahay waad mahadsantihiin wadanka inta aad joogtiin uu guuleysana wuu guuleysan doona ilaahayna hayda dhaafo intaas kadib waxaan u hambalyeynaa oo leeyahay waad mahadsantihiin shaqaalaha dawladda Soomaaliya oo ayagana aad kaalimahooda geli jiray tookeysan jiray wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay soo habeey jirtay ajanda jadwalka ay ku soo shaqo tagayaan waxa kale oo nala joogay oo nala dhisay bulshada rayidka naga maqneen waxa kale oo nala dhisay Soomaali dil iyo dibad inta jirto ma dhihi karo qurba jooga anaga wax nagu darsato lacag noo keentay laakiin dad qurba jooga noo yimid oo nala dhisay oo maalmo soo kormeeray ama nala jooga ama niyada noo dhisay ama talooyin noo keeno badan way jiraan waxa nala dhisay wasaaradda howlaha guud oo injineeradeeda aan habeen iyo maalin harsan oo arkaysiin hadda inay joogaan 3 injineer iyo injineerkoodu weena injineer Shirwac oo hawshaas joogto noolahay waxa garabkeyga taagnaa oo ka dhimi waay oo hawshaas asaga ahaan ay si qabsoomi lahayn ninka leeyahay agaasim Ismaaciil wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo hawshaaneta aabba ka aha marka aan hooyo ka aha hooyo aabba hawsha marka laga yahay waad garan kartaa intaas ay ku dhisantay intii dhistay meelo kale noo badan hadda dhagax dhigi rabnaa mar dhow oo ayagana noo bilaabanayaan waxaan leeyahay waan guuleysanay waan adkaysanay waan isdhiirigelinay geesiyaalaan noqonay waan dhiseynaa wadankeena inta ay meel jaban ku taalo